intaan natiijada vote-keena aanan sheegin markaan sheegayana walaalahay way soo dhinac istaagi doonaan waxaan marka hore kusoo dhaweynayaa Maxamed Cali Nuur oo ahaa gudoomiyaha guddiga qabanqaabada shirweynaha aan qabanay isla markaasna haddana asagoo mas'uul ka ahaa asaga iyo ducaad mas'uul ka ahaayeen tirinta wixii aanu samaynay processka wixii tirinteedii iyo natiijada soo saarideeda ay u sameeyeen umareen waan jeclahay maxaa aanu inoo shaqo natiijada ugu horreysa aan idiin sheegi doono walaalayaal waa mahadsantihiin wax cajiib ah maanta meeshan ka dhacay oo ku tusinaysa heerka aan soo marnay haddaan meesha nahay iyo qaabka aan ku dooranay iyo xadaarada aan ku dooranay waa wax cajiiba oo maanta dadka looga mahadin karo ilaahay ka sukin adinka ayaa ka mas-uul arrintaas nidaamka natiijada aan maartay aan ku fiirin ama ku hubinaynay in doorashada xaq u dhacday wuxuu ahaa aniga ducaal ayaa mas-uul ka ahay laba nin oo ka socota labada musharaxna way nala joogeen way nala tirinayeen mar walba oo aan tirinaynana way nala tirinayeen markaan qofka tirinaynana magacyadana way nala hubinayeen marka taas waxay ku caddaynaysaa labaduna waxay caddeeyeen in habkaas uu doorashada ku dhacday hab xaq ah oo wax musuqmaasuq jira magacyadii baan fiirinay arrimuhu dadku isfarmaan hogaa fariska hogaa liituwaa jirta laakiin overall markaa fiirsid guddi aan ku hadlayo guddiga qabanqaabada iyo ducaale waxaan maanta halkan ka sheegayaa doorashadu inay ku dhacday si xaq ah waa mahadsantihiin waxaan rabaa inaan idiin sheego inta aan weli lama sheegin sheegi doono inta aan la sheegin waxaan rabaa inaan idiin sheego systemkan baaladka ah oo aan u eg inuusan boqor badnayn hadda laakiin tillaabo muhiim oo reersada qaadeen ay tahay inuu ninkii alifay oo ku dooday oo xaqiijiyey inay dhacdo u ahaa Mr. Said Qadar ilaahay ha siiyo haddaysan taas hayn maanta muran waa ka badnaan lahay taa qodobka labaad waxaan rabaa inaan idiin sheego maanta doorashada inaysan ahayn qolkan keliya adduunyaro dhan laga daawanay adduunyaro markaan ilaahay waa 3 degmo oo dalka Ingiriiska oo ay fadhiyaan niman khiyaara oo qaarkood urur ka tirsanaa qaarkood ay supporters yihiin marka waxa weeyaan markaa xoogid aan kusoo dhaweynaya gudoomiyaha si uu ugu sheego natiijadii waayahay dadweynuhu waxay sugayeen natiijada codbixintii aad samayseen walaalay natiijadii gacanteeda ku jirtaa warqadihii baalotskaayo codka lagu bixiyaa halkaysay yeelaan kayd baynoo ahaanayaan haddii aan la yidhaahdo ururkeena kayd u yihiin walaalihii hawshaas gaar ahaan ugu xilsaarnaa natiijadii ay soo saareen gacanteeda ku jirta candidateskiina waxay taagan yihiin dhinacyadooda natiijadii sidaan oo dhan codbixintii la qaaday 59 qof ayaa codbixintooda samaysay oo delegateska aan ku magacownay 59kiiba codkii ay qaadeen ballotskooda valid bay ahaayeen arrintaasna waxaa isla xaqiijiyey walaalihii labadii qof ducaale iyo Maxamed Cali Nuur oo mas-uul ka ahaa tirinta iyo labadii korjeega oo matalaysay labada musharax ويصلح حقيقيين إني بالوتس كادو هاي بالوتس كاس يقعد كل مدة إني فاليد يعني صح ولا حاجة دورشة النتيجة ده سنة نقطي صدم يشان عبد الغني الشيخ علي الديني أفر يلا بعتن ليبان عبد الله عقال markii natiijadu saa noqotay jaalaha cabdinaasir
الشيخ عبد الله محمود ومثلا ليبان عبد الله عقاب وقصدي إنه والله بيو والقضاء عبد الغني كل سؤالك أو كهلا وهو بيه والله تصي وهو بيه وحب بالي مقريه ويرواسح سيدا أتكاسو داعي ومقعدا سيسري إنسان وحالة تصي ولكن كلا عبد الناصر كلا وضع الصدر والقضاء كلا أتكسي ليبان مقعدين إلا تصي سيدي بقى الله تصي أصور الله فوقا حقوقا مقريه إنه سحيه labadii korjoogtada ah labada masharax matalaysa waxay go'aan ku gaareen in codkaan sax u dhacay saxraya waxaa la qaybsaday oo natiijadaas intaanan halkaan keenin ku sheegay saaxiibada dhinacyada taagan oo labadii masharax ahayd si fiican bay noogu qanceen natiijadiina waxay noqotay gudoomiyaha ururka SDSI ee taaranka soo socda inuu yahay cabdiqani sheekh cali diin intaas ayadoo ay natiijada codka sheegidayso gudbinteeda ay u dhan tahay waxaan leeyahay aad baad u mahadsantihiin sida sharafta iyo quruxda leh oo codka u bixiseen waxayna ka turjumaysaa maxaa allo siduu sheegay bisaylka aan mar walba hore usii bislaanaya waxaan uga baxayaa hadal badan oo kale igama furna meeshan waxaan uga baxayaa أنا سيدي هذا المشاهد طبعا مقالن شري هذا الكلام مقالن شري مركا رغم ما يشتاق من وين عادي وحنا قبل حياة لبعض سكور على وعندنا عدد نتاجن إن أيام كهبون إرادة أيام نوم مشيان معي نتيجة مركا كدي الديالي هذا وحنا قلت دور الشدة بورد كي دلكيتس كأيانا بورد دوران dadka ama la soo barboosgareeyay ama ku sharaxana ayaga sheegi doona laakiin waxaan ka yar horumarsanaynaa haddii la yidhahdo sidaas shalayna aragteen maantana ducaalayna xusay waxa ayna la socda oo shirkan la bilowday ilaa haddana la socda Birmingham iyo Leicester oo isu tagay Birmingham jooga gaar ahaan Birmingham waxay noo soo jeedin doontaa haddii la yidhahdo oo ay meeshan baahinta looga soo baahin doontaa halkaana ka soo dhawin doonaan ayagoo noo fududaynaya dadka ay soo barboosgareyn doonaan oo matali doona oo xubnaha golaha dhexe ururka kootada ku lahaayeen qaadan doona magacyadooda annagu si sirminaana ugu dooran doonaa laakiin ayagaa soo barboosgareyn doona waana sii doona waa mahadsantihiin walaalahi baa laga bismillahi rahmaani rahiim dhammaan waa idin salaamay waa ku mahadsantihiin isma oranaynin Columbus adigoo ordahaya baad rayn doontaa isma oranay waxaan isku oranay waxa weeye ninkii la ordahaya waa gurigiis waana laakiin waxaan rabay inaan idin caddeeyo qofkaan ahay 20 sano inaan u taagnaa hawshii haddana aan meesha kasii wadahayo abdalqanina waxaan ku rajaynayaa khayr iyo horumar iyo guul waana la shaqeeya dhammaan walaalaha meesha fadhiya inta marti sharafta inta delegateska ahayd inta ka qayb gashay doorashada inta wax dooratay iyo inta aan wax dooranba aad baan ugu mahadcelinaya waxaan weliba leeyahay dad badan baad waxoogaa waxaad moodaa markii doorashadii waxbaa dhacay layidhi kackac yar baa galay dadkii uma ana imaan meeshaan xil laga qaadayaa ma jirto xaqiiqda runtaa taa iyadaa xil laga qaadayo culays iyo dhib iyo inaad aan ka mashquulno carruurahan nu korsanaynin baan ka qaadaynaa meesha wax kale baan ka qaadaynaa ma jirto maanta doorashadan dhacdayna haddii aysan dhicinin jawaabteedii inaan bixin oo ah inaad gacan geysataan oo sidii hore iska beddeshaanna anna waxba qaban doono
walaalkay Cabdinuurna kama duwanaan doono waxa ugu badan oo ay ku soo hari doonto gacanteedana waxa weeye wixii aniga awoodayda ah shakhsi ahaan bay noqon doontaa inaan qabto waxaan halkan ugu mahadcelinayaa walaalkay Liibaan oo runtii aan ururkana ka wada shaqaynaynay aad iyo wuxuu u firfircoona bini aadamkuna kaamil maahan waxaa laga yaabaa oo runna ah wax aad u fara badan oo anigu aanan qaban karin ururkan aanan ka qaban karin inuu qaban karo taas macnaheedu ma ahan gudoomiyuhu inuu ururkii oo dhan hawshiisii u istaagayo oo qabanayo laakiin waxa way wixii awoodiisa ku aadan ama qayb ahaan mas'uuliyad ku aadan buu qabanaya xubnihii ururka shaqada ka wadi lahaa oo kuwa hadda la dhisayo walaalkay Liibaan ugu horeeyay anoo mar labaad u mahadcelinaya walaalkay Liibaan runtii wax yarna waa taabtay oo haddee marti la bixiyey camalna waa walaalkay wuxuu yidhi warabuusan cabasho aysan lahayn waa kaftan macnaha arrin laakiin waxa weeye martina waa inoo ah oo deegaankana martigu inoogu yahay laakiin waa deegaankiisii wey deegaan anagu aan gooni ku ahay maahan meesha waan ku dhaqanahay waa ku noolahay keliya laakiin qof walbaba shakhsiyadiisa iyo garashadiisa iyo ehelka intuu u yahay meel kasta ula joogaya waxna uu qabanaya mar labaad